باريس الأسميسي وحا وعصفتي باريس ريبورت المصدر كوهاي صديقة بوليس كوهاي المشاريع سوقاتي وبس قلت باريس الأسميسي سؤال هاي أنها بيتها وها mar kale ayay saaki ka bilaabatay halkan maxkamadeynta shabakad al-shabaab u qaabilsaneyd dilalka gaadmada ah gaar ahaan degmooyinka cirifyada ah ee ku yaala galbeedka Muqdisho. Hay'adda baarista booliiska CID-da ayaa sharaxaad ka bixisay mid kasta oo ka mid ah afarta eedeysane. Eedeysanaha koowaad Shucayb Cabdullaahi Maxamed oo magaciisa afgarashadu yahay Axmed ayaa lagu eedeeyay dilka dad ay ka mid yihiin marxuum Cabdi Cali Maxamuud oo ahaa nin shacab ah oo ka ganacsanaya hilibka Kawaanle 27 November sanadii 2018 Aaba Cali Maxamuud Cali Adduunyo ayaa inoo sheegay inuusan garanaynin sababta uu u geeriyooday wiilkiisa oo maareyn jiray 9 caruur ah oo ay kala dhaleen laba xaas uu qabay iyo waalidiintiisa hilib uu qaadayay oo baaburtan caafiya oo hilibka ku qaadayay waaba lagu cuslaado uu yiri anaaba hilib dhigay dukaandeena islaantu gadgada jirto uu yiri deerisoo sana hilib dhigta miya loogu yimid lagu qaarij inta lagu xabadeeyo la qaadaya lama beeriyo ku dogdar ku jiriyo ku geeriyood artistiisa mid waxa waaye saddex anugay lahayd saddex uurna waa lahayd oo kadib uu ka soo baxay kuma la ogeyn midna shan anugay lahayd marka waana ka dima dabki sagaas saasoo ahaa dambiyada kale ee loo haysto Shucayb waxa kamid ah dilka ex gaashaanla Paul Yusuf Cabdullaahi Maxamuud waxa la dilay isagoo oo ka soo baxay salaada maqrib 9 December 2017 waxa uu ahaa ka soo koow ciidan wadaad tujiye salaada iyo xirfadle dadka ku caawin jira caafimaadka laakiin nasiib xumo waxa uu ku baxay gacanta Shucayb baara wuxuu sheegay inuu masaajidka ahaa imaam salaada markuu ka soo baxay la dilay waxay tilmaamaysaa يعني فكرك يعني كوحدان الشباب دليردان ay mataqaana adeegsadaan aaminsan in aadan diinna uga fakanayn uga gambanay yani qof kasto Soomaaliyeed haybad kasta la haado bulshada meel kasta uga jiro han noqdo muadin han noqdo mataqaana sheekh dadka wacdiya han noqdo daaci han noqdo mataqaana asgari dawlad u shaqeeya qof kasta waxay ugu xukumantahay dil yani sawirkaad arkaysaan ninkaas wuxuu ahaa nin yani sheekha waxa uu si dheereed wuxuu qof xirfad caafimaad yaqaan wuxuu qof dadka badbaadiya wuxuu qof mataqaan bulshada u adeega waxay abaalkiisa ka dhigeen inay dilaan ay dhaafiyaan nolosha Maxamed Cismaan Axmed oo magaciisa afgarashadu yihiin Cabdiweli Atam iyo Pakistan waxa uu ahaa kaydiyaha hubka iyo kala gudbinta dambiilayaasha geysanaya dilalka gaadmada ah halka Ismaaciil Maxamed Aweys Xuseen uu qiray in uu ahaa howlgalkiisii ugu horeeyay fal ay nolosha ku dhaafin lahaayeen Baarliin Cabdi Warsamo oo ahayd hooyo ka korisa reerkeeda iibinta qaadka Saadaq Cabdi Jabaar Umar Xuseen ayaa cadeeyeen hay'adaha baarista inuu geystay dilka ex dable xooga Maxamuud Xuseen waxa ay cadeeyeen xafiiska xeerlaalinta in bistoorada lagu dilay marxuumka horey looga dishay Maxamed Axmed Cabdulle oo ka tirsanaa hogaanka baarista dambiyada booliiska CID-da Saadaq ayaa 2 jeer oo horey loo xiray sanadihii 2015-2016 xilligaasi oo la xiriirinayay kamid ahaanshiyaha al-shabaab iyo dhaawac loo geystay muwaadiniin kale xafiiska xeerlaalinta oo sharaxaad iyo gabagabada kiiskan ka jeedinaya fadhigii maanta ayaa codsaday saadarteed maxkamadda sharafka leh eedeysanayaasha waxay ku sifoobeen dambiyadii ay galeen kuwa khatar ku ah bulshada saadarteed waxaan soo jeedinaynaa in lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah dil toogasho oo billahi tawfiiq qareenada u doodayay eedeysanayaasha ayaa maxkamadda weydiistay in la bedelo dhammaan qodobada eedda maadaama ay eedeysanayaashan mar qura la wada qaban waxyaabaha kale ay ku doodayeen waxa kamid ahaa in ay ahaayeen arday iyo dad nolosha u xamaasho sidaas darteedna ay codsadeen in la siiyo xurriyadooda in qof kasta dambiga uu galay gooni loogu soo eedeeyo eedda dib loola celiyo si waafaqsan qodobka 12aad eedda ama xafiiska xeerlaalinta uu tirtiro ama si waafaqsan qodobka 113 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya iyo xeerka habka ciqaabta haddii uu ku qanacsaneen inuu eedaas ka tirtiro maxkamadda waxaan ka codsanayaa in dambiyadaas aan ku cadeyn aan lahayn markhaatida in mataqaana maxkamadda awood u leedahay inay tirtirto dambiga si waafaqsan qodobka 111
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa soo xiray dhegeysiga dacwadda ka dhanka ah afarta eedaysane. dhegaysiga garmaqalkii lidka ku ahaa eedaysanayaal shucayb cabdulaahi maxamed, saadiq cabdijabaar cumar, maxamed cusmaan axmed iyo ismaaciil maxamed aweys fadhigan ayuu ku egyahay. maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta. cabduqaadir ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.